الحمد لله مصليا على وبعد هذا النظم للمريد. xaflad ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka maxadka barashada diinta islaamka iyo luqadaha carabiga ah ee Al-Furqaan ayaa ka dhacday dugsiga hoose dhexe ee deegaanka og oo ka tirsan gobolka Sool waxaana xifdinta quraankaas kariimka ah ka qalin jabiyay ilaa 53 arday oo 40 kamid ah ay khatimeen. munaasabadaas oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay oo ka soo qayb galeen dadweyne kala duwan ee bulshada deegaankaasi sida uqaasha waalidiinta iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmadaasi ayaa waxa laga dheehan karaa jawi aad u degan oo ardaydu ku soo bandhigeen qadar kamid ah aayadaha quraanka iyo axaadiis. xafladii aynu furanana waxaynu ku furanana aayado quraana oo inoo akhriyo doono mursal cabdi cawl. الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ستكون فتن فقلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله. الأمر كما سمعت. متى بدأت دراستها؟ بدأت في سنة الماضي. من شجعك على دراستها؟ شجعني والدي ومعلمي وأصدقائي. برأيك هل هذه اللغة صعبة؟ في نظري ليست صعبة ولكنها تتطلب وقتا وجهدا كبيرا. haddana maanta waxa weeye taariikhda dadka dhan waa ogiin hadda maanta aynu marayno ardada inta ay dhiganaysay waxaa laga joogaa 3 sano iyo 5 bilood. marka horeysa waxaan si weyn oo kaliya laaba runtii ugu hambalyeynaya macallimiinta ilaahay subxaanahu wa ta'aala markaa maxaan ku ardayda arkaysaan sida wax u akhriyaya ee ay tan runtii tahay dufcadii afraad ee markaa maxaan ku aaday baxda 3 sano iyo barkii qiyaastii macallimiintaas ay joogtay inay tahay markaa waa dufcadii markaa afraad weeyatane waa markii ugu horeysay xafladatan waa xaflad ta ugu khayrka badan leh ee ugu iimaanka wanaagsan leh ee ugu ehelka wanaagsan leh mid la qabto waa mid ugu wanaagsanay. ilaahay baan ugu mahadnaqanaa waa intaas oo laga sii kordhiyo oo aynu dadaalka sii laabno laakiin waxaad moodaa dadaalka la geliyay ama macallimiintu ha gelisay ama waalidiintu ha gelisay tan la geliyay inay aad u fara badan tahay. quraankii ilaahay oo ay dusha ka qabteen waxaan kaloo halkan uga ducaynayaa waalidiinta laftigooda ku soo tacabtay ardaydan in ilaahay fi aakhirada xasanaad ka siiyo. sida runtii waxaa mahadnaqa koobaad iska leh macallimiinta ardaydan wax baraysay ee sida wanaagsan ee habaysan ee nidaamsan wax u bartay. عدنان صالح محمد درويش TV تولد اوق.